canshuurtu haddaydan bixin dawlad ma shaqayn karto waxyaabaha aad arkaysaan oo nalooga hormaray dawladahan aad arkaysaan oo maxaan ku raahdaa hore u maray waxay hore ugu mareen waxay tahay shacabkooda yaa canshuurta bixiya oo qof walba habarta shaaha karisa gabadha maxaan ku raahdaa yaayada gadda iyo ninka weyn hotelka iska leh isku si inay canshuurta bixiyaan markaas waxay imaanaysaa dawladda inay xoog yeelato oo lacagtii iyo dhaqaalihii loo dhiibtay ee si fiican u maamusho idinkuna aad noqotaan dad muwaadiniin ah qofka hadduusan canshuur bixin muwaadin ma aha qofka muwaadin waxaa ka dhigaya iyo dawladda inuu wax ka sheego ama dawladda waa markuu wax ku darsado dawladda waa degan tahay dalka dhexdiisa kaliya ma aha muwaadin annagana hanagu kalifina inaan dawladda dad idinkoo kale inaan barino oo aan niraahno canshuurtiina wax naga siiya dadkiina fiican oo canshuurta bixiyee annagu dadkeena ma rabaan canshuur inay bixiyaan magan alla magan rasuul wax naga siiya waxaad haysataan naga ilaaliya annaga noomaydan dooran inaan xuquuqsanno waxaad noo doorateen inaan sharafkiina iyo karaamadiina idiin soo celinno laakiin inaan maalin walba dawlado shisheeye aan hoos fariisanno aan niraahno war wax naga bixiya war ciidamada naga bixiya xaq ilaahay maaha sidaas darteed haddii aad la tartantaan shacabiyadaas kale oo aan idiin sheegayo annaguna waxaan la tartamaynaa dawladahaas kale waxaan idiin sheegaynaa 4 sano gudaheeda dalkan inuu noqdo dalalka ugu horumarsan Afrika insha Allah hadduu la yiraahdo wax yar aan isiiyo report intii aan qaban